dhulka hooyo wacana dhaayaha u roona dalxiis kaliya ma ahayna dalxiis ayuu ahaa run ahaantii markii ugu horeysay ayay ahayd ee aan gaadho dawga sheekh waxa ayna ii noqotay waayo aragnimo cusub waxaan filayaa nimankaa xool ugu guulaysanay dadka tishkooda soo jeesto markaa loo fiidiyo waa la duubayna biyahan dambe waxa nagu badan brank waxa la dhaho deetana qof walba difaac u xiranaya waxa weeyaan horta kolley dhammaantiin waxaan doonaya inaan wada guulaysano inaynu helno qof walba wuxuu leeyahay waxaas waxay doontaa qaadba gaariyay ruucu badan yahay anigu lowga waxaa وزيرتها أو قف كلام وتقرصنا صح تقف كاركو وكاشين كلام مركا عطا قالتو بس بدو يسا مركا حرنا يا وحا قاتي قف قاتي مركا سقورنا هي أنا قاتي مركا وعدينا وحي لو قلت لك مركا إلا عررنا دينا ما قفصنا في سنو كده إلا ديرو إما كان صوص هارية مركا جيم كاو حن بدن لي لو واحد ولا تنجي شيء كده إن شاء الله ما وحي قصورنا من وحكي dhulka ku dhacdo aniga taa qaadanay moogtaa did aniga dib u qaadanay aniga ma hadda waxini inta ka soo hadhay noqoto ta dooran weeyeen aniga dib ugu soo noqonaysa ya aniga markay gudoosinaysan tuuraya 1 2 3 ala way dhaqaas ala قف ميو هذا يا قف ميو نقول هذا قف ما هذا دميها قف محبق هذا الطباخ سمعنا يا هلاي جامعة فري لو كده جيا أنا كنت يلا بقى تكلم يا قاتي قاري بس كده أنا قاري ولا يبيو بس كده مراد ملالي يا قاري يا قاتي قاري وقاري قوري هذا حاجة قطع له بيو قاري حلا شكلي حلا حارة يقول الله والله تمكم معنا جيد الله يقفل بنو قاضنا يوحد إنه قفل بنو
والله ولي بس اسكو حرام marka ninkan abaalmarintiisa baa la siinayaa abaalmarintiisa eegana marka waxa noqon dhammaanteen way nala yar tahay buugga qiimihiisa laakiin waxaan garan karnaa ninka qoray Dr. Ibrahim Fiqi baa waa maareynta waqtiga runta waxaan filayaa qofkii waqtigiisa maareeya inuu waxa kala dhan oo adduunka yaala oo dhan maareyn karo marka waxaan filaynaa inuu ninkaasna ka aflixo asxaabtiisa ku dhawna siiyo intaasoo qofina meesha taagana wadakii kaliya kaga guuleystay waxaan sagna inuu hambaliyo صح هبلي صح برنامج خاص وقت من ويلي faanka guud ee safarka iga baxay waxa uu ahaa kala dambeynta iyo ismaqalku inuu yahay furaha koobaad ee guusha lagu gaadho intaan goob waxbarasho joogay ima soo marin dalxiis noocani wuxuu noqon doonaa mid taariikhi ah ujeedka dalxiisku kuma koobnayn farxad iyo dhulbarasho keliya laakiin waxa uu helinayay isku duubnaanta ardayda